ka tirsan midowga Afrika gaar ahaan kuwa Ethiopia ayaa soo gaaray maanta magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. askartan ayaa ka mid noqonaya ciidamada AMISOM ee ka qayb qaadanaya amniga magaalada Dhuusamareeb iyo deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka dhawaana la filayo in doorashadiisu ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa warbaahinta waxa xaqiijiyeen maanta ciidamada Ethiopian ay yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. shalay ahayd markii magaalada ay yimaadeen ciidamo ka tirsan midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka Djibouti oo ka yimid magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan, iyadoo magaalada markaa ay soo gaareen si weyn loo soo dhaweeyay. waxaana dhawaana la filayaa in Dhuusamareeb uu ka dhaco shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug, iyadoo ammaanka magaalada si aad ah loo adkeeyay. maxamed cabdiweli tooxow, idaacadda kulmiye, Dhuusamareeb. maxamed waad mahadsan tahay. muqdisho haddaan dib ugu soo noqono, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. dhanka kale isla gelinkii dambe ee maanta ra-iisul wasaare Kheyre waxa uu xafiiskiisa kulan uu kula qaatay guddiga dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan soo koobay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. kulanka ay yeesheen ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa la tilmaamay in looga hadlay horumarinta gobolka, sare u qaadida amniga iyo bilicda caasimadda. gudoomiyaha Cumar Maxamuud Maxamed ayaa ra-iisul wasaaraha warbixin ka siiyay sida ay ku bilaabatay socodsiinta hawsha iyo qorshayaasha ugu degsan dardargelinta shaqooyinka horumarinta gobolka Banaadir. ra-iisul wasaare Kheyre ayaa gudoomiyaha u ballan qaaday in xukuumaddu maamulkiisu kala shaqeynayso fulinta qorshayaasha horumarineed. waxa uuna faray in maamulka gobolka la yimaado qorshayaal cadcad oo lagu xaqiijinayo horumarka caasimadda dalka. dhanka kale galinkii dambe ee maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddiga u xil saaran wajiga labaad ee dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida. kulanka dhexmaray guddiga iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa looga hadlay sidii ay u socdaan howlaha guddiga iyo dardargelinta dib u habeynta ciidamada qaranka si loogu guuleysto howlaha dib u dhiska ciidamada. ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga faray inay dardargeliyaan howlaha ay ku gudanayaan waajibaadka ka saaran dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. wajiga labaad ee dib u habeynta ciidamada ayaa ka kooban in ciidamada la diiwaan geliyay lagu hubiyo goobihii lagu diiwaan geliyay, in la qiimeeyo baahiyaha ciidamada ee saanad iyo hub, in la qiimeeyo dhismaha xeryaha ciidamada oo lagu saleynayo tirikoobkii la sameeyay, tayeen ciidamada iyo qiimeynta dhanka tababarada ay u baahan yihiin. maamulka Jubbaland waxa uu sharci darro ku tilmaamay xariga loo geystay wasiirka amniga ee maamulkaasi oo shalay la sheegay in laga qabtay garoonka dayuuradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. dhanka kale dibadbax looga soo horjeedo xariga wasiirka amniga ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee isla maamulkaasi Jubbaland. Yunis Durraan Cali ayaa faahfaahinta warkan eegaya. madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta kulan ay Kismaayo ku yeesheen waxa ay ka hadleen xarigii garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde loogu geystay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Nuur Janan maalintii shalay ahayd. wasiirka uu ka yimid gobolka Gedo kuna sii jeeday dalka Itoobiya ayaa waxaa xiray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in aad uga xun yihiin xariga Cabdirashiid Janan Muqdisho loogu geystay aadna uga walacsan yihiin badqabka wasiirka amniga Jubbaland. kulanka kadib ay yeesheen madaxda Jubbaland uuna horeeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa laga soo saaray qodobo arrinta looga hadlayo. wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa warbaahinta uga warbixiyay qodobada looga hadlay kulanka. waxaa shir degdeg ah isugu yimid guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland. shirkaasi oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan. waxaa lagaga dooday xaaladda afduubkii wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland loogu geystay garoonka Aadan Cadde Aadan Cabdulle Cismaan International Airport ee magaalada Muqdisho, isagoo safar shaqo ku marayay halkaasi maalinnimadii Sabtida ahayd ee taariikhdu ay 31 August 2019. arrintaas oo nagu noqday mid la yaab leh. waxaa wax raad ahna aanan ku lahayn sharciga, xuquuqda mas'uuliyiinta xasaanada leh iyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed. sidaa awgeed dowlad goboleedka Jubbaland waxay walaac weyn
ka qabtaan nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo ku lug leh tallaabadaasi shalay xorriyadda looga qaaday wasiirka amniga inay si degdeg ah ugu soo celiyaan xorriyadiisa. sidoo kale waxaa hay'adda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ka codsanaynaa iyaga oo gudanaya waajibaadkooda sarreynta sharciga iyo ku dhaqanka nidaamka dawliga inay cadeeyaan xadgudubka lagula kacay muwaadinka xasaanada leh una soo bandhigaan sharciga dalka. dhinaca kale banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda xariga wasiir janan muqdisho lagu geystay ayaa waxay ka dhaceen maanta degmooyin ka tirsan gobolka Gade ee koonfurta Soomaaliya. degmooyinka ay maanta banaanbaxyada looga soo horjeeda xariga wasiir janan ay ka dhaceen waxaa ka mid ah degmooyinka Balad Xaawo, Luuq, Doolow iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gado. dadka dibadbaxa dhigayay oo aad uga xumaa xariga wasiirka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay soo deyso wasiirka amniga Jubbaland. ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland waxa ay maanta ay xabsiga ay u taxaabeen sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee maamulkaasi Puntland waxaana la sheegay inuu taliye ka ahaa gobolka Cayn ee maamulkaasi. magaalada Garowe ayay ciidamada ammaanku ay ka qabteen. Cumar Maxamed Soomane. wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in xabsi ku yaala magaaladaasi lagu xiray taliyihii qaybta booliiska maamulka Puntland ugu qaabilsanaa gobolka Cayn gaashaanle sare Ibraahim Cabdi Balayax Dhoolgo. ciidamo ka tirsan kuwa amniga Puntland ee ku sugan magaaladaasi ayaa taliyaha ka qabtay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Garowe isla markaana xabsi ku yaala magaaladaasi ay u dhaadhiciyeen. wararka ayaa sheegaya in taliyaha uu maalmahan ku sugnaa caasimadda Puntland ee Garowe xabsiga la dhigay kadib markii sida la sheegay uu diiday amar ay siiyeen taliska booliiska Puntland oo la xiriiray in uu dib u habeyn uu ku sameeyo booliiska gobolka Cayn isla markaana shaqada uu ka cayriyo askarta aan sida joogta uga howlgelin gobolkaasi. si kastaba ha ahaatee ma jira wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska Puntland taasi oo la xiriirta xariga magaalada loogu geystay taliyaha qaybta booliiska gobolka Cayn ugu qaabilsanaa maamulka Puntland gaashaanle sare Ibraahim Cabdi Balayax Dhoolgo. maamulka degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoosena waxa ay ka warbixiyeen kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka oo maanta ka dhacay magaaladaasi Barawe. Axmed Abuukar Sabriye wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa warkan inoo soo diray. odayaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulan ay qayb ka ahaayeen ayaa waxaa maanta lagu qabtay degmada Barawe iyadoo oo kulankaasi ay sidoo kale qayb ka ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyo kuwa xooga dalka waxaana soo qaban qaabiyay maamulka degmada Barawe. inta uu socday kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray xaaladda amniga degmada iyo sidoo kale bulshada iyo laamaha amniga degmadaasi sidii ay isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta amniga. inta uu socday kulankaasi ayaa saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM waxa ay ka dalbadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qaybta ka ahaa kulanka in ay bulshada ku booriyaan sidii ay u adkeyn lahaayeen wada shaqayn buuxda oo ay markaasi yeeshaan iyaga iyo laamaha amniga si loo adkeeyo amniga degmada Barawe isla markaana falalidi ku ah amniga uusan ka dhicin degmadaasi. marka uu soo ilaaday kulankaasi diiradda lagu saarayay xaaladda guud ee degmada Barawe iyo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen shacabka iyo laamaha amniga degmadaas ayaa waxaa sidoo kale jiray kulan ay wada qaateen maamulka degmada Barawe iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Barawe ahna kusimaha gudoomiyaha degmadaas Maxamed Cali Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in kulankooda ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada in ay diiradda ku saareen waxyaabihii u qabsoomay maamulka degmada Barawe tan iyo markii uu shaqaynayay. waxaan isweydiinaynay sida horumarka Barawe hadda ay ku tilaabsatay oo ka mid tahay sida dhisida suuqyaha degmada Barawe qayb ka mid ah sida dayactirka suuqa Barawe caanaha sida nadaafadda. waxaan kaloo ka hadlaynay waxaan qabanay ugu hadlaynaa sidoo kale odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka nin walba doorka wax u waato. waxaan ka wada hadalnay inta hadda noo dhiman sida jidkii Ingiriis oo magaalada laga soo galaasna inaan caro iyo waxyaabo
waxyaaba badan iyo jay aan kusoo sano jidka aan dhisano dadkaan wax u qabsa annaga aan saxirkaana aan sugsano